سهل هيه سؤالك وديه هيه ما حد يودينسا متقنة محانو أقوم وكرتون عثمان عبدي وكرتون عثمان عبدي ومشرح بارلمانك فدرالك الصومالي صح وشرحان تاي وهليي ربع داء laga yaqaan gobolada Soomaaliya gobolada la yiraahdo Puntland صح magaalada Qardho صح Garowe Boosaaso meelan laga garanayn malaha waa naag haliyay ah 30 sano u shaqeynaysay bulshada reer Puntland mashaariic badan ka fulisay maxaa la yiraahdaa ganacsi badan soo gelisay dalka dhalinyaro badan shaqo abuur u sameysay hay'ado badan maxay ahayd keentay kicisay dad badan oo dhalinyaro in ay meeshaas ka helaan shaqooyin iyo maxaa la yiraahdaa hawlo badan ka fulisay gobolada Puntland isbitaallo ka furtay hoteelo ka furtay wax badan dadkaas u qabatay walaalaheeda maanta waxay diyaar u tahay inay horumar ka sii sameyso horumarkii awal ay sameynaysay mid ka sii weyn oo balaaran inay sameyso waa musharax dadka reer Puntland waxaan u sheegaynaa inay doortaan waxaan halkaan rabaa inaan geeraar yar uga sameeyno walaasheen kartoon Cismaan Cabdi musharax xildhibaan oo deegaan doorashadiisu ay tahay Puntland gaar ahaan xarunta dhaqanka Qardho maalintay 10 jidhabay meel ku toosahayd kaltoon talinaysay rabbigayna uu kamilay waa aqoonyahan indheer garada oo karti leh gargeyrtii iyo tolkaaba way ku garab socdaan xilka lagu garay rabbigay guusha kuugu gargaar kaltoonay waxaan ku rajaynaynaa insha Allah inaad ku guulaysato xilka musharaxnimo xildhibaanka federaalka insha Allah hadii Ilaahay idmo waxaan rajaynaynaa inaan xamar kugu soo dhaweeyno heesna waan ku qaadi doonaa mar dhow hadii Ilaahay idmo campaign-ka ku socota